السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دوادا جنرال كينا شاركي اوفيشال جنرال كشاركي اوفيشال مانتا وحي هوري wax ku doona wadna waxa waayane arin murugal leh oo naxtin leh oo aan la yaabnay arintaas wax kale ma aha waxa waaye walaalkeena Xasan Toob oo janalkiisa laga saaray hawada laga saaray waxaan aad iyo aad ugu xumahay hadaan nahnay saaxiibadeen bahda shirka official hadaan nahnay dhamaan waxaan ka xunnahay in saaxiibkeena janalkiisa hawada laga saaro waa nin legend ah waa youtuberka Soomaaliya ugu weyn Muqdisho gaar ahaan Soomaaliya oo dhan waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad aan ka xumahay in Xasan Toob youtube-kiisa hawada laga saaro ninkaas oo ah nin dad badan soo saaray dad badan oo talent leh indhaha dadka shacabka tusiyay ma sha Allah marka waxaan leeyahay waa xumahay aad iyo aad marka saaxiibkayga Yaxya maxaa dhahaysaa dadka sameeyay oo kula kacay wallahi bila aad u xumahay arintan markaan maqlay dareenkaygu waa isbedelay waayo Soomaalidan waxaan ku naqaan waxaan horumar u gaar laanaan waa aniga asxaaqreeno aniga asxasdeeno Allah bema Xasan Toob waa nin miskiin iska oo youtube-kaas briskiis ku dhacsan jiray teeda kale waxa arintaas ku sameeyay waxa shaqaale ay hoos imaado shirkadaas kamid ah marka aniga waxaan leeyahay Xasan Toob arintan ku dhacday laakiin dib ma lahan waxaan wax walba adduunka qadar Allah waayo wayna dhacdaa waa inaad sabirtida oo dul qaadatid wax janaal leh waa wax jigaaga wali lama xadin laakiin waxa la xad janaal bisa la xaday marka arintan waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu meel fiican ku dhameeyo oo janaalkaaga dib loo soo celiyo wallahi aad u qiireysana wallahi beenna ni sheegayni waayo janaal leedel oo loo qaatay waxa wax sahlan ma intaas sanadood shaqeynaa intaas sanadood oo dadkaas ku barteen wax wanaag wax fiican marka inay arintaas dhacdayna aad u xambaarina durdur miidiina waxa waaye janaalada Soomaali janaalada oo fiican oo caansan oo qatarsan waayo waxaan taas u leeyahay ma jirto janaal oo maalintiiba ama habeenkiiba 4 video ama 5 video soo update gareynayo wax aan la macquul noqonayn waayo dad shaqo diyaar u ahay 4 video qof inay hal janaal soo dhigto adag waa wallahi dadka qaar hal video way la dhibaateeyeen inay habeeyaan soo dhigaan marka waa wax aad loo dhalaceeyo aad ayaan u xunaanay boqolkiiba boqol waa ka xunaanay hadaan baadi youtuberska caawana waxa inta soo fidisiina wax kale ma ahan arintaas waaye marka waxaan dhihi lahaa Xasan Toob asiga oo dardaarmi lahay inuu asiina arintan cashir ka qaato oo dadka soo dhaweysanayo macnaha shaqaaleysiinayo inuu asiga ka fujignaado userkiisa macnaha passwordka asiga qof asiga khaas u ah inuu dhiibto waayo maska hal mar oo dadka qaniina laakiin mar labaad uu qaniinka gaadmo ku qaniin karo waayo qaniishada hore oo dareema maano marka waxaan leeyahay Xasan Toob waa nin fiican waa nin lagu deysado waayo qof walba wuxuu leeyahay qof lagu deysto role model ah ana waxaan leeyahay youtuberska Soomaaliya youtuberada shirkada ugu fiican ugu qatarsan inay tahay durdur media oo qarsanay aad ayaan ugu xumahay dareenkaygana intaas keena taas waa mid la isku raacay inay tahay janaalka ugu fiican Soomaaliya durdur media youtuberada Soomaaliya ka shaqeyso marka aniga waxa leeyahay aad ugu xumahay laakiin insha Allah durdur media way soo laabanaysaa waayo hadana fiir sharkiyo arinyaha inuu durdur media youtuberada Soomaaliya ugu fiican inay tahay waxa ku cadeynayso youtuber soo saartay maanta youtuber durdur media qas baxaan wallahi tabeema dad badan aan aqaanin oo durdur media soo saartay wallahi way buuxaan wallahi dadkaas hadda fiir dibka hadda soo gaaray dadkaasna ugu bishaaraya cadow ku yihiin way ku dhibac badsanayaan way quslayaan wala farxa bla iska dhiga orniyo waxa sinimo fiicno ninka walaalka maanta doo jabo waxaa la rabaa in adina la murugoto ma ina ku farxad ma khalad weey marka aniga waxaan leeyahay dadka cadowga ah xaasinimada la faha ka gashay waxaan leeyahay saan isku dhaamo wax fiican ma aakhiro iyo adduunyo ma liibaanaysin hada xaasid aad tahay oo cadow aad tahay oo walaalka jabkiisa ku farxaysid wallahi ma liibaanaysid wallahi xaqiiq waa taas Xasan Toob waayo dadka soo saaray waxa kamid ah fiiri awees baafo waa nin miskiin awees baafo soo saaray oo meel iska joogi jiray oo gacan soo qabtay oo bulshada dhaxkeen oo maanta shactireen oo maanta janaal furtay mustaqbalkaas fiiri ilaahay ka soo yaa ka dambeeyay Xasan Toob
dad badan xasatoob wallahi dad badan laakiin xasatoobniyo inta badan dadka soo saar wallahi ku caasiin wallahi awrniyo xasfiiraade war fiir bil aadanka waxa la mid qofti aad asxaan yariisa u sameeysid amal waa maasantaa ku dhahay waayo horumar yar haduu gaaro bis horumarkaas oo isku taqsiin aniga durdurmidii waxa leeyahay insha Allah way soo laabanaysaa waa laga shaqeynayaa inay soo laabatane waan jeclahay insha Allah fiiri durdurmidii fiir hadii inta ku xirneed hada janaalkan waa wala wallahi anugu aad noo jeedin wallahi billahi ku xirna xasatob wallahi waa filsada janaal cusub haduu sameeysto wallahi ina been ku sheegeen inta hal maalin hal habeen ku qaadays inuu soo ceshto waayo waa qof la jeceliyaa وكل كع والله وكل كع إيش مرك والله هذا عاود دوسمي وحامسنه بريني كنت كده فيس أوغاني كنت كن وياه دافس بالأكلية مرك والله لكن حسيت وحبينه قبت صاحب فهمتي مرك وحوق وحب حياله بدنا قبت هذا وقدم بوحتي وقدم بسوحي إن الله تبص على البافو أو هي سجال سنة مستوصل برتاس تدا حبت كجرتي oo dadkii horkeen YouTube ku soo fariisiyay wixii ay qabtay sheegatay wixii xanuun u haayo wuxuu u fidiyay gurmada u fidiyay naagtii xabadii waa laga saaray way duceysay wad arkayseen marka ninkaasi dadkaan waxay u diidan yihiin horumarka oo gaaro waad aragto durmiyay dad badan soo baxay oo maanta bla iska dhigayaan marka aniga xasuusto waxa leeyahay saaxib waliga adkayso dadaalkaagana ma haga sii wad taasabeen wallahi marka wax walba bilaadanka waxa la mid qanaadaan ninka Soomaaliyeed qofta aniga heerna gaarsiiyo ma dhahno waa maalsantahay intaas aad soo sameysay laakiin waxa iska dhigaynaa qofkaas ka deeqsan oo ka khatarsan iska dhigaynaa hadda ma xasatob cid gaaraysa ma lahan xasatob durmidiya dadka ma gadnay xasatob jiisa dadka gadan fahanteen ninkaas jiisa dadka gadan waa nin legend ah kaasna waxa uu rajaynayaa inuu YouTube-kiisa kusoo laaban doona hawada insha Allah qofta marka la jecel yahay waxa lagu dareemaa ma taqaana marka waa si dib ku dhaco wada hadda waa istaay inta adu faro kuturis oo 3 iyo 4 bis ma ahane ayagoo ayagoo soo fariisteen kaamirada hortooda oo iska dhigaya wax ka xun laakiin oo Allah xasan wala dareemi karaa markii video ka hadlayso dareemi dad badan waa intiina ka sheegay wax marka xasinimo faa'iido ma laha waliga heer magaarisid xasinimo heer lagu gaaray Soomaaliland inaan iska cansino oo isgarab siino oo isgarab qabano oo wax walba isku faraxsano dibka asla qabsano wallahi bilaa wax naga halaabaya haba yaraatay ma jirto insha Allah taageeraas dudurmidiina insha Allah xasuusto soo laabanaya insha Allah mar dhow soo laabanado Ilaahay oo idmo in la soo celin karo ee dhacdo oo la dhaho la soo celin karo oo soo naqaan kaas YouTube aan fiirsay video qiirada badnaa arkay waxa xasuusto loo hadlay video oo soo dhigay walaashiina fartan balbalaarka والله فرتون بالك والله إلا إن صفوش والله قبرك قلب وناكسن والله إن الشيء ما أركين وايو فيري أيكو دب أيكو إسلاش الشقينا إصدقالين وكلب تجين على شيء سافوا على شيء سافوا صل الروا وأمرقتي وقيرتي هذا لكن عدو وحجره جعل صمان نمو قصلا ساس بلا إسكرية أروى صاحب كواي ولا الكواي وأن الصوماليا إسكودياتين و dadka ay dhab yahay islaan islatiin Soomaali islatiin isku diinatiin waxaatiin isku sinji isku wax walba islutiin marka saa u farxaysaa ninka Soomaaliga oo Soomaaliya horumar oo gaaray ma u diidantahay ma ku farxaysaa jabka gaaray maanta ila taas dhibaato saaxiib xiliga la isoo macnaa la isxifaaltamo ma xiliga waxa xili la iskarab qaban lahaa hadan dadka ku farxaadaan waxa waxay u badiyeen mataqaana dad asi oo soo gacan qabto oo bulshada tu sawaad saxaabo wallahi ana hadda xasto dubanay keen la markino sanad u sallallahu alayhi wasallam xasto laakiin dad soo gacan qabta maanta isu isaan jabkiisa ku farxoya laakiin wax walba waa mataqaan qadar Allah waano ina asina saabkii xasuusto aniga ku taageeraa insha Allah janaalkaaga oo soo laabana dadkaaga ku jecel yihiin ana kamid saaxib waa soo laabanaysa insha Allah dadkaasna oo ku farxayaan adow lambar 1 yal waaye marka faanta marka xabad ha u qabanin anuka ku jecel shacabka dhan oo ku taageero magaalada taana ka taabay maaha فرماجو هذا والله حفيزك فرماجو حودي عليك علمية بينما حقيقة واي حسيتهم ما إذا أخانين ملهن صح والله بينما والله بقول لها والله بقول لها دقيقة سنة والله بلات الله وحقيقة صدق بينما أنا كاسنين اللي يقعنوا أمانته صح بقال لهم قدوش والله إذا ميل أنا لي أخان حسيتهم ملهن بركة حسيتهم وصل الله ولا إن شاء الله جنا الكيسنا وصل الله ونا إن أنا هذا حل إريا كسوق جوينا حلي لاي نكي عدو أما نكي حاسده كليس مليبانا مليبانا عمر ما بقى سميه مليبانا لكن هذا قلبي وناكسنت أو قلبي فرنساي أو بدك أجعشاي أو سود بيسد أو خزليس أو فرحسنتاي marka aniga xasuusto waxa dhaha masa soo dhaweeysan
masaska qaar iska ilaali وصبر wax walba adduun sawir horta waa soo sabarta adiga halaha soo sabar duqaadka leedahay wallahi nin la ma jiray هذا العرض القاد كحسته هذا لا تكبر bismillah wallahi xasoo duqaad waliya wallahi nin rag waay رول موديل saaxibkii goobina ku dhahaa hor u soco nin dadaala talent leh dadka badana soo gacan qabto qof walba talent leh meesha keeno balaay ka dhigo qofkii ku caasiyo ka tago haddana aan xanaaqeenin هذا في نظامي وكتجا بينكي وحصو أبدو تري فيديو عصب صديقي خرج وحصو كشقالي سي دد عصب لا بقى فوضى عصب عبس على الباب فوق بحي يكل كنا عرتي كوكل عدن لك قف دي بخوف كل كنا صنبل هذا ماشي نكاس أنا وتنكاس وحقت جالسنا عاونت ودك عاونا هاد ده متقنا قفل بوبهن إن العاوي أو يوتيوب ولا غيره وقرب تاني حسكور قف اللي ما جرت والله حس طبعا جالسنا جيب قوي برادا marka fiidiyowgeena intaas ku soo gabagabeeyna caawana wax kale inta uu soo fadhiisin arintaas degdega ina walaalkeena xasato aan dareenkiisa iyo murugtiisa ina la qaybsano arabna maano waayo wax walba waxa musliminimada iyo walaaltinimada waxa aan naga dhaxay wax walbana qiiradaasna galiyay Soomaal marka waxa leenahay xasato marka la galiyay dibka ugu dhacay adina waxa laga rabaa inaad sabrtid adduunka wax walba waa arkay sabr adduun sabr Allah saaxib faanta adduun sabr lagu joogaa marka xasuusto wax leenaanay wax walba iskaga dulqaado wax walba way dhacaan waxaan adduun waaye waxba ha ka xumaanin inta adiga ku taageerto inta adiga ku jecel ayaa ka badan inta adiga ku neceb markan waxa leeyahay xaasidnimada wax fiican ma ahan walaalo hadaa tahay xaasidnimada ka soo laabo walaalka wuxuu asiga yahay ku taageer wuxuu asiga guusha oo gaaro ku farax wax guusha oo gaar adina uu gaari waa nin walaalka ah waa nin Soomaali islatihiin ma ahan ma nimaanta nin kale oo shisheeye ma ahan marka guusha oo gaaray adina waa gaartay ku farax jabkiisana ha ku farxine la murugo marka aniga xasuusto waxa leeyahay insha Allah jannada insha Allah ilaahay ku soo celiyo dad fiican haysta oo ku jecel wax ma ka janaalkan oo la waayo habada laga saaro janaalka soo soo mid kala sameey kara waa waxna ku soo ceshay wallahi ben taasana markan waxa leenahay dadka xaasidinta xaasidnimada ka soo laabta hal nis caawiyo caawinaad oo xasuusto oo fidiyo halna fidiyo dadka kale lagu daysado anaka insha Allah ku daysanayna xasuusto wuxuu sameeynaa inaan sameeyno oo ku faraxsanaanay way wax fiican oo sameeyaa marka waxa leeyahay inta xasuusto taageerto insha Allah xasuusto janaalkiisu soo laabanaa muddo dhow soo laabanaa sida la sheegay insha Allah uu soo laabanaa marka aan ku tacaawo waxa u maani wax kale ma ahan inaan barnaamijkaas ka hadalno walka xasuusto galnay oo macnaa wax yar ka naga dhacay naga raado noqdo anigu xanaaqana keenay waayo walaalkeen dartiis oo xanaaqna fahantiin marka asxaabtu waxaan leenahay hal is caawiyo wax walba dadaal waayo marka barnaamijkeen inaan ku sii dheerana marabno marka waxaan leenahay asxaabta naga cusub soo dhawaada kuwii hore nala joogane aada u maasatiin subscribe-ka naga ilowina leega shareta marka fiidiyowgan inta soo fiidiya aada jeclaanay Soomaaliya dhan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.